ciidamo tiro badan ayaa saacadii ugu dambeeyay Somaliland ay u daabushay gobolada galbeedka gaar ahaan labada gobol ee ay colaaduhu ka soo cusboonaadeen ee Selel iyo Awdal iyadoo maanta shir wada tashi ay ka yeesheen madaxda ugu sarreysa Somaliland sidii loo soo afjari lahaa colaadda u dhaxaysa labada beelood ee Gadabiirse iyo Ciise haddaba si aynu faahfaahin uga helno furimihii lagu dagaalamayay maalmihii ugu dambeeyay iyo sida ay nabadgelyadoodu tahay waxaa si toos ah khadka ugu jira Baashi Cali Jaamac Baashi soo dhawow dagaalada dhacay 29kii bisha iyo maalmihii ka horeeyay waa sidee hadda xaaladda nabadgelyo ee deegaamada soodimaha Itoobiya iyo Somaliland ay leeyihiin labadii maalmood ee u dambeysay horta waxa badoo dhacaysay ma jirto laakiin 29kii bisha waxa dhacay dagaal culus kolka labadii cisho u dambeeyay wax dagaal oo jiray ma jiro Baashi maanta Somaliland si weyn ayay arrintaasi uga fadhiisatay guddiyo ayaa loo saaray madax dhaqameed ayaa ka hadlay talaabooyinkaasi maxay ka bedeli karaan colaadda ka aloosan gobolada galbeedka Somaliland inta adiga aragtidaada ah iyo inta ogtahay waa soo dhaweynaynaa horta maanta inay Somaliland dawladdu inay maanta garowsato oo dhibaatada gobolada galbeedka ka jirta ay ka hadasho waan soo dhaweynaynaa waayo wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho oo nabad waxa weyn wax loo baahan yahay mar walba waxa muhiim ah kulay wadada loo marayo wada hadalka iyo nabadda in la isla gartaba fiican marka waxa weyn waan soo dhaweynaynaa si guud nabadgelyadaas iyo waxa weyn go'aanka maanta la qaatay beesha ciisana mar walba waxay diyaar u tahay marka la rabo xal nabadeed wada saxana lagu rabo in lagu gaaro diyaar bay u tahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaa arrintaasi beesha Ciise dhawaan waxa jirtay wafdi ka socday oo Hargeysa yimi oo dib u laabtay wafdigaasi marka la eego qodobadii la isku mari waayay waxay muujinayaan in beelaha Ciise nabadgelyada ay shuruud ku xirayaan arrintaasi miyay jirtaa waxa weyn Yusuf horta Somaliland guddi waxa jira nabadgelyada ka shaqeeya guddigaasi inkastoo guddi qaran oo nabadgelyada u qaybsan uu yahay haddana beeluhu saami bay ku leeyihiin beesha Ciise horta wax saamiyay guddigaasi aan bas xubin ugu jiro oo ku metelay ma jiro meesha lagu qarnaqsanayo kolka aad goobjooga ku lahayn cidii aad ishayseen ee gartu inaga dhaxaysan oo goobjooga u joogo arrintaasi waxay noqonaysaa wax dhinac ka radan waa meelaha waxa weyn dawladda Somaliland wada hadalladan iyo waxa weyn inta ugu badan fashilka keenaya arrintu ay ka radan tahay sida daraadeed guddigaasi maadaama aynan qayb ka ahayn beesha Ciise waxa kaloo iyaduna xusid la guddiga maanta la soo magacaabo madaxweynuhu sheegay inay irka arrintaasi ka yihiin madaxweyne ku-xigeenka horkacaya madaxweyne ku-xigeenkuna waftiga uu hogaaminaya beesha Ciise dareen badan iyo xasaasiyad bay ka qabtaa waayo bilowgii markay xiisadani bilaamaysay qablihii iyo wiilashii TikTok-ka arrintan abuuray bay ahayd waqtigaasi wixii Ciisuhu uu ku tuusanaa amba saddex cadaydba kolkay dhalinyartaasi saylac u barasaabka hore ku horjoogsaday amarkii ay ku galeen buu lahaa madaxweyne ku-xigeenku sida daraadeed dhexdhexaad uma arkaysa beesha Ciise arrintaasna dareen kale bay ka qabtaa nabadgelyada marka haddaba hadii la rabo oo nabadgelyadaasi ciidiidaysa ay ma jirtee mar walba waxay u baahan tahay nabadgelyadu habkii ay ku suuroobaysay iyo dhibtani wixii keenay iyo halka ay hawshu taala in la galaba loo baahan yahay si taal loo helana waxa weeyaan arrintani dhibaatadeedu waxay ka timiday deegaano la kala sheeganayo bay ka timiday deegaano dadkii deganaa la leeyahay malihidina bay ka timiday kolka waxa weeyaan Somaliland su'aal inay isweydiisaba aad u fiican hadii uu jiro dhul abuur cusub oo imika yimiday oo dhul cusub oo imika Ilaahay abuuray haduu jiro oo wax lagu gorgortami karo waxa la oranayaa warde dhul baa soo biiray marihibel baa qaadan mise rihibel baa qaadan oo taa hadal baa ka imani kara kolka sadeejad ilaa jad meeshii aad deganeyd awooyaasha ku aasnaayeen asalkaagu ahaa lagu yiraahdo malihid cidda malihid ku tirina beel walaalatiin oo isfasheen oo inaan yaabtigin tahay arrintaasi tiyaahdo waxaasi wax dhacaya maaha waxaan leeyahay maalan arrintaasi ma garanayna ilaa imika waxa uu inuu runta u abaaro uga warwareegayo ma garanayna waxa garnaqsi toos iyo waxa weeyeen inuu labada beelood ee waliba milkiyadiisa ku jira inuu runta u kala sheego oo yiraahdo warde sidee adiguna dhulka aad waxa weeyeen malihid aad ku tiri
waadiguna waxa weyn sidee maxaan ku raahdaa dhulkaasi waa dhulkaagii oo cidi kaama lehin maxaa keenay in dhibtan iyo dagaalkan uu yimaado in la yiraahdo yahayd oo arrinta halkeega loogu tago mar walba saxadii bahasha dusha laga yar daboolo nabad baa iyaan ku baaqaynaayo nabadgelyo sameynaa la yiraahdo wada xaajo dabana la gali waayo waxay noqonaysaa arrintaasi inuu qiiqaayo dhibaatadaasi kulli ay si unu sii jiitami doonto dareenka aan maanta qabnana waxa weeyaan hadii go'aanka maanta dawladdu ay qaatay go'aankaasi oo si saliim ah aqliga saliimka tilmaamayo qarnaqsigeedii iyo taladeedii iyo tusaalaheedii la yimaado wax badan waxaan leenahay kulli wada hadalkaasi waa lagu najixi doonaayo dagaalku nibadan uma aha ugu dambeyntii baashe labadiina beelood mid waliba waxa ay leedahay gorgortan kama ogeysayla haddii gar ay noqotona dee in la soo hor fadhiisto oo deegaan waliba cadaymaha uu haysto ee uu ku sheeganayo deegaankan soo bandhigo markaasi kadib go'aan la gaaro ayay noqonaysaa balse haddii aan gar ogol aanu jirinin maxaa doonaysa in Soomaaliland qabato maadaama oo deegaanna aanu ogolayn gorgortan iyo in lagala garnaqsado waxa uu ku muransan yahay ma jiro horta meel beesha ciise ay ku diiday gorgortan iyo garnaqsi markasta waxay lahayd waxa in laga hadlo oo muhiim ah ay tahay sida dhulkaygii iyo deegaankaygii jad ilaa jad aan deganaa la igu sheegtay la yiri xaflad kuma qaban kareysid mafaatix la ii lulay dhiigayga lagu xalaashaday arrintaasi waxa weyn ilaa halka la gaarsiiyay aniguna maanta waxa weyn aan ka falceliyeen iriya kol haday meeshii deegaankaagii malihid la yiri aniguna wax weey waa inaan deegaankaygii aan difaaco ay ku timiday arrinta horta in la xaliyo baa u baahan si taa markaasi loo xaliyana waa in labadii dhinacba ay dawladuna u dhaxayso oo dawladdu dhulka waxa weyn waaniga kula ma jiro dhul abuur cusub oo hadda dhul imika yimiday dhulka waa la joogay ummad baa joogtay labada reer baa cid baa taqaana deegaan la ah dad Soomaaliyeed ehela ah oo waa la garanayaa sida dhulka loo kala degan yahay oo de markay deegaan noqoto iyo markay magaalo noqotana laba macno kala leedahay magaalada waxa weeyin ciidan Soomaali ahayn baa imani karto degi karta tijaaro ka sameyn karta laakiin deegaan marka la yiraahdo deegaanku de waxa u deegaana ninka xoolihiisu ay joogaan qaabada keena caanaha keena dadkaas deegaan la yiraahdo dadkaasi de kolka xaabadii iyo xoolihii keenayay oo eriyadaasi deegaan kolka la yiraahdo meeshan deegaanba kuma jiido waxaad ku qabsanaysaa ma jirto taasi waxay ahayd dulmi bay ahayd gaf bay ahayd godobta ay beesha ciise tirsanaysay ahayd gardarrada in loo eegay dawladdu ay ka karnaqday ahayd ay beesha ciise doonaysay bay ahayd kolka waxani waa wax iska fudud waa arin hadii dawladdu xabad joojintaasi marka ay joojiso haday garnaqsigaasi bilowdo waxa weyn gorgortankaasi ay bilowdo de ciise waxa weyn sida uu dhulkiisa u rabo sida uu deegaankiisa u rabo sida de waxa weyn 60kii uu dhulku ahaayay labada degme ee Luqhaye Sayla Coode isla socda iyo de beesha ciise lahayd waxa weyn saamigeegana ay wax kaga qaadanaysay ilaa dawladii kacaanka waxay u baahan tahay wixii khaldamay oo dhan in la soxo waxay u baahan tahay sidii waxa weyn jiritaankeega iyo waxa weyn deegaankayga u xaqiijin lahayd inay u sheegto dawladda inay u sheegto saamigeega iyo wixii kaga maqan inay ka doonto kolka arrinta waxa weyn waa arrin la xalin karay walaal hadii daacad laga yahay